meeshaan waxaa u jeedaan 3 libaax oo daal iyo haraad iyo gaajo ay ka muuqato. waxa ayna masaafad aad u dheer soo elyanayeen ayagoona daal ka qaaday baciid yar. baciidkiina halkaa ayuu ka galay. halkaan buu ku nasan yahay baciidkii. libaaxyada ayaga ma ahan xayawaanada dabaasha, umana saamaxaysa in ay biyaha soo dhex jeexaan kadibna ay halkaas ugu tagaan baciidka. waxa u dhexeeya masaafo aad u dheer oo biyo ah. hadday u badato halkan ayay biyo ka cabayaan, indhaha ayayna ka eeganayaan, dib ayayna isaga laabanayaan, sababtoo ah iyaga awood uma laha in ay biyahaasi dhex maraan kadibna ay u tagaan baciidkaas. halkaas unbay afka taagayaan. baciidkiina waa kan weli cabsi ayaa ku jirta, inkastoo markaan kalsooni uu qabo isleeyahay kuguma imaan karaan, balse dhibaato kale ayaa jirta. biyaha waxaa ku jira bahal kaloo asagana dhib badan. yaxaas baa ku jira biyihii, asagana hoos buu u fadhiyaa. wuxuu rabaa in uu hal mar gadaal ka soo maro, uu biyaha ku dhex tuurto, uu ku casheeyo doonaya asagana. farsamo ayuu degayaa. yaxaaskii dhanka gadaal ayuu rabaa inuu ka soo maro, kadibna uu meeshaas uu ku cuno. waad aragtaan, yaxaaskii halkaas ayuu marayaa isagoona shanqarta iska ilaalinaya si uusan bahalka u maqlin, uusan uga cararin. gadaal ayuu ka soo galay, tartiib ayuu u socdaa. shanqarta ayuu yareeyey. wuxuu u socdaa dhanka baciidka. baciidkiina waa uu arkay. difaac ayuu galay. libaaxyadii waa kuwaan quus ayay taagan yihiin. difaac ayuu galay. yaxaaskii dib ayuu u laabtay maadaama isku daygiisa koowaad uu fashilmay. haatanna wuxuu isku dayayaa inuu weerar kala qaado. meeshaana waxaa soo dhowrtay, waad u jeedaan, waa jeer. jeerta iyadana dhankeeda ayay weerar ugu jirtaa. waxay iska dhigeen dhagxaan meesha iska yaal. shanqarti iyo dhaqdhaqaaqa ayay ilaalinayaan. ayagana dhankooda ayay weerar ka yihiin oo waxay doonayaan inay bahalka qabsadaan. yaxaaskii ayaa mar kale isku day kala sameynaya. isku daygii gadaal uu kasoo galay waa uu ku fashilmay. haatanna isku day kale oo biyaha la quusay ayuu isku dayayaa, balse baciidkana waxaas waa uu ka feejigan yahay. waxa uu diyaar u yahay meeshii loogu soo boodo dhankeeda kale inuu u cararo asagana. waa nin karmeed ka soo fakaday 3 libaax oo in badan soo eryanaysa, kadibna biyaha ka soo galay. waxa uu raadsanayaa waddadii uu ku fakan lahaa, waayo 4 dhinac waxaa ka xiga jeer, hoosna waxaa ugu jira yaxaas. xaaladiisa aad bay u xun tahay, meel uu ka bax male. 4 dhinac waxaa isku hareerayay jeertii oo iyadana doonaysa inay qabsato, balse intuu dhanka yaxaaska u boodi lahaa wuxuu ka doorbidayaa inuu dhanka jeerta usoo boodo. waa kaa jeertii ayuu madaxa kaga dul istaagayaa. waa jeertu waa ay culus tahay oo ma soo daba carari karto, balse yaxaaskii ayaa dhanka kale ka soo wareegay. oo soo eryanaya. yaxaaskii baa eryanaya. baciidkiina nafta ayaa taagan, wuxuuna ku dhow yahay inuu biyaha quuso. inuu quuso ayuu ku dhow yahay. yaxaaskiina waa kusoo dhawaaday. yaxaaskii ayaa kusoo dhawaaday. baciidkii hadda wuxuu ku dhow yahay inuu fakado. waxa uu ka fuulay meeshii sare. yaxaaskiina waa uu quustay. waxa uu ku qasbanaya yaxaaska in uu dib isaga laabto maadaama uu kasoo fakaday. yaxaaskii waa kaa iska laabtay. waxa uu kasoo fakaday 3 libaax, yaxaas iyo jeer ciidaasi ka badan.